وهاجاج ضد خميسة عاوة وحنو كيج دونا حيسد حدك كتاجنا ودحيس الصومالية كينيا وعقد كمجالات مقدسة توسجوا جرا حلبان ظاهر جسو أو كم إذا حلبان هذا دولة الصومالية سيدو كله وح استوديو هنا مجالات نيروبي كوسوغان دكتور محمود شيخ عمر وحلبان كترسان برلمان كينيا لبدينا بسودو هذا أدي أدو ما سنتنا برنامج كنا جلس قيب قشان هدي أن أقلو برنامج كسيدا هدي مركز لقت هجو dooda muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya waxa bariyahan labada dawladoodba ay miidiyaha isku marinayeen warbixino ama dhambaalo ay midba midka kale ku yeedeen faragelin dhul hadii aan ku bilaabo jeeso faragelintan ama xiisadan xadka halkee salka ku haysaa aad u mahadsantahay walaalkay xaraare waa waadax waaye waxa muxuu ahay xadka ka socdo sida la socoto arintii badda ayaan anagu aragnaa inay daba taagan tahay barashar ay saarayso dawladda Soomaaliya dawladda Kenya ayaan u aragnaa tan ugu daran oo aan runtii aan dhihi karo waliba damiinimo ayaa keenayso waxa weeye in xadkii Mandheera iyo muxuu ahay balad xaawo in jabhad lagu aasaaso oo aad arkayseen inuu dagaal ka dhacay oo shacabkii labada dhinacba ay wax ku noqdeen marka anigu waxaan qabaa arintan oo dhan waxay daba socotaa arintii badda dawladda Kenya waxa weeye waxay u dhumaysaa burburkii Soomaaliya ee ay ka soo kabatay ay wali ay aaminsan tahay inay muxuu ahay ay sida ay tahay kuma xisaabtamo hoyso dawlad caalami ah oo caalamka muxuu ahay xiriir wanaagsan la leh oo siyaasadeeda muxuu ahay ay ka kortay muxuu ahay waa Soomaaliya 60 sano ayay gaadhay waa qaangaar dawlad qaangaar ah ayaan nahay anaga sidaan u soo aragno waliba Kenya 3 sano ayaan ka weynaa waa gartay aad iyo aad ma santa xildhibaan jeeso waa kugu soo noqon doona Dr. Maxamuud aad bad ma santahay walaalahay horta runtii daahir wuxuu ka waramay xiriirka Kenya iyo Soomaaliya runtii xiriirka Kenya iyo Soomaaliya waa xiriir aad iyo aad u wanaagsan in badan oo qoto dheer lahaa xagga xiriirada wanaaga ah hadii aan ugu noqdo arinta badda waa arin xasaasiya labada dhanba runtii waan garan karaa Muqdisho in ay dareemayso in ay Kenya raalli iga noqo waa mahadsantahay ma doonayna inaan badda gallo waxa ka hadlaynaa xiisada xadka halka ay salka ku hayso xiisada xadka markii aad tiraahdo ay halka ay ku hayso ka hadlaynaa borderka runtii waxaan oran lahaa Muqdisho iyo Nairobi wada xiriirkooda aad buu u dheeraa una wanaagsanaa qalalaasaha ka yimid xagga xadka ma aha Kenya inay u hanqal taagayso hawsha badda mana aha in burcad la keenay halka iyada ama dad jabhada la keenay runtii waa wadan federaal oo ballaaran Soomaaliya wadankeeda iyadana waa lagu ictiraafaa taayada xadkeeda iyo xuduudeeda annaga ayaa dhibaato weyn la gaarsiiyay waxaana gaarsiisay Soomaaliya oo u soo gudubtay u soo talaabtay Mandheera raalina kama nihintaa iyada hase yeeshee labadii dad waa isku dad Soomaaliya xagga jirto iyo Kenya kuwa xagga jiraba waa isku dad laakiin waxa keenay taa iyada waa diblomaasi xumi ka timid Muqdisho sidaan anagu u aragnay xildhibaanaha hadaan nahay diblomaasi xumida iyada waxa la doonayaa in ay Muqdisho maadaama hadda uu xildhibaan daahir yiri way qaangaartay oo 60 sano ayay gaartay waa runo 60 sano way gaartay qaangaarka diblomaasiya waxaan u malaynayaa dadaalkeedii aad maanay u muujinin hadalka ahna jabhad xageeda ahna waxaan u malaynayaa jabhad ma ahe ayaga soo gudubka ay soo gudbeenna runtii wadanka Kenya raalina kama aha waa wadan xora waa wadan dimuqraadiyadeeda caalamka dhanba laga wada ogyahay marka laakiin waxaan oran lahaa dadaal xag diblomaasiya in ay ku qaangaaraan muhiim bay u tahay Muqdisho waa gartay inta aanan jeeso u gudbin laba ama hal noo sheeg waxyaabaha diblomaasiyadda ee xamar khaldayso laga baahnaa inay saxdo midda u koobaad waxa weeye in ay akhbaar soo dirto markii qalalaasaha uu yimid midda labaad in aanay soo gudbin xadkanaga aanay ku dagaalamin magaalada Mandheera oo dadka yagi barakicisay jeeso waa weydiino jeeso labada arin maxaad u fali weedeen inta aadan u gudbina Mandheero oo dad lagu barakican
waa maasantahay xildhibaanka anagoo ixtiraamahay waxaan malaynaha wadanka ma joogin isaga haddii uu joogina siyaasadda ayuu ka dhacsanahay sababtoo raallina iga ahaado xildhibaanadii reer Madheera iyo Wajeer waad maqlayseen waxa afkooda ka dhacayay in ay lahaayeen nin ka fakada cadaaladda oo wadankooda soo galay oo dowladda Soomaaliya baacsanayso hanagala celiyo inay lahaayeen xildhibaano asaga lamid ah oo berrito baarlamaanka ay isku dhex arki doonaan oo shir jaraa'id qabanaya BBC-dana waad ka aragteen meel walbana waa laga arkay oo cambaaraynaya dowladooda marka aan leeyahay anagu siyaasadda waa ka qaangaarnay waxaan filayaa 3 sano ay naga yar yihiin ayay weli ka qaangaarin ninkii isku dayay balad xaawo iyo Madheera meel u dhaxaysa inaan nin dabiile ah jabhad uu ku sameeyay ku haayo waxa weey runtii sheekhu waa raalli iga ahaado anigu waxaan qabaa inayna qiilna lahayn waxa ay ku kacday Kenya waxyaabo badan oo dowladda Soomaaliya ama tii militariga ha noqoto ama tan ha noqoto oo wangaala ay kamid tahay oo ugu sabarna waa jirtaa laakiin hadda xilligan tan waxaad moodaa inay lunsan tahay oo ay ku lunsan tahay in muxuu ahay ay Soomaaliya sidii u burburtay ay u jaban tahay wali u dhutunayso maya ma dhutunayso Soomaaliya way ka batay mana ogola xadgudub diris wanaag iyo walaaltinimo yar noo kaadi maxamuud ba hadalka sanaya jeeso u kaadin yar raali noqo maxamuud waxaan oran lahaa xildhibaanka walaalkay anigoo isagana ixtiraamayo markuu ay ruux soo gudbo wax kasta ha u soo gudbee aaway tallaabada diblomaasiya oo caalamka laga yaqaanay ay Muqdisho fidin lahayd ama qofka ha ahaado qof ay raadsanayeen ama qof kale ha ahaado sidee ciidankooda ah oo qoryaha wateen ku soo gudbeen waxa kale ku raacinaya NFD ban ka imid Wajeer ayaan ka imid aniga waan la socday waan joogay xildhibaanada goorta ay baxayeen waan joogay ha ahaatee xildhibaan kasta isaga ayaa fikradiisa leh ha ahaato aniga waxaan leeyahay maxaa diblomaasiya ugu iman waayeen oo ugu soo daadan ugu soo socon waayeen intii 1200 oo qori ay la soo gudbayaan oo la imanayaan xad ay ayaga lahayn taa iyada diblomaasiyada caalamka lagu yaqaanay xagay martay marka taa iyada waa taa iyada ta kale xildhibaanada arinta ay ku doodeen waa tu ayaga ay si khaas ah iyo arin siyaasadeed ay ka wateen ani aragtidayda si aan waqtiga u wada faa'iideysano su'aashaas horena oo weydiisay dib ugu ma celinayno soo jeeso su'aal ku weydiiyo raali noqo jeeso asmaqallo al-shabaab soo ka faa'iideysan mayso xadkan inay Kenya iyo Soomaaliya isku qabsato labada dhinacna Soomaaliya baa wada degtay ogow wallahi hadda fiiri mar haddii diriskaada oo muxuu ahay diris muxuu ahay aan fahamka sida cadowga loola dagaalamo aan fahmayna dow noqdo shabaabku waa faa'iideysanayeen hadba dhinacay u guurayeen oo cararayeen waxaan arkay maalin dhaweeto nin oo siyaasi ah oo dhahay Soomaaliya hadii rabto inaan aan u soo dhiibno Cabdirasiid Janan al-shabaab madaxdeeda noo soo dhiibto horta qofka noocaas ku fikiray sidee siyaasad iyagu la hadlayaan siyaasad waxay u baahan tahay inaan aad dhigi taqaano meesheeda aad dhigi taqaano waxa aan muhiim ah oo aan rabnaa inaan wada ogaano dawladda Kenya anagaba Interpol baan ka wada tirsanahay qofka dambiilaha ee Kenya dambi ka soo gala ee Interpol nagala soo xiriirta waan soo celinayna waa maadsantahay jeeso halka igu ekay aad iyo aad u maadsantahay barnaamijkeena uu dhamaan rabaa maxamuud adigoo degdeg igu jawaabay al-shabaab soo ka faa'iideysan mayso khilaafka u dhaxeeya ee Soomaaliya iyo Kenya ee xadka ku yaala waxa kale oo ay raacaysaa maxaa xal ah sidee wax la yeelaa nin kasta oo ammaanka dagaal la ah ammaanka xagga Soomaaliya iyo xagga Kenya dagaal la ah way ka faa'iideysanayaan qalalaasaha waxaan doonayaa Muqdisho in ay aragto ay shaashada ka aragto arinta diblomaasiyo caalamka si fiican looga yaqaano way ka faa'iideysanayaan raalina lagama wada ah xagga iyo xaggaba dadka Soomaaliyeed xagga iyo xagga jiraana waxaan aad iyo aad u hubaa inay raali ka ahayn soo gudubka mar allaala markii ruux Interpol uu raadsan lahaa waa Interpol in diblomaasiya lagu doona miyay sameeyeen Muqdisho su'aasha waa maya dhowr MP bay u yeerteen oo ayaga ay fangareeyeen saxna ma ahayn taa iyada laakiin jananka lagu eedeynayo inuu Mandheera joogo inta aanay dawladda ciidan u soo dirin soo warqad dawladda ma soo saarno ma dhihin Kenya waxay ku soo xadgudbaysaa xadkeena waxa ka tiraahdo way tiri warqada ay geysay maxaa xiriirkii ambassador baa noo jooga embassy baa Muqdisho noo joogta ambassador isaga protest letter kaliya kuma aanay ekaanine horay bay uga sii dhaqaaqeen marka xagee wada tashi inta ay bilaabaninba xabad baa bilaabatay
marka waan ka xumahay runtii inuu xildhibaankayga uu ila fahmo in arinta diblomaasiya muhiim ay tahay oo Soomaaliya ku qaangaarto diblomaasiya. waa maasanta Jeso aan ku soo koobay. Jeso maxaa xal ah? waa xalka waxaa weeye dowladda Kenya oo aqoonsato muxuu ahaay in Soomaaliya iyo iyada ay diris yihiin inayna isku eegin maraayid weyn ayna isku eegin oo inay murqo weyn tahay oo soo arkin waayo Soomaaliya murqo weyni iyo murqo yiri midna wax loogama qaado walaaltinimo aan u ogolnahay diris wanaagan u ogolnahay xiriir wanaagsan aan u ogolnahay wax hadii intaas laga waayese Soomaaliya waa naqaan ninkii ila hadlaya hadda oo BBC-da kula jir waa nin Soomaaliyan wuu yaqaan asagaaba Soomaaliya marka hadii dowladda Kenya xiriirka ay wanaajin wayso oo anaga waa jecelnahay inaan wanaajinay waxa way dacartii cabta ayaan la cabaynaa waayo dulqaadka uu naga dhamaaday waxaan moodaa inay maraayid lacabaysaan xalka maanan gaarin barnaamijka aad iyo aad ayaad labadiinaba u mahadsantihiin.